iyadoo 24 saac la soo dhaafay ay roobab mahigaani ka daayeen guud ahaan gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laascaanood ayaa ay saameyn ku yeesheen isku socodka dadka iyo gaadiidkaba marka aad dhex martay shawaariciyada waaweyn ee magaalada Laascaanood waxaad arkaysaa biyo badan oo dhex fadhiya hareeraha wadooyinka iyo sidoo kale qashin aad u tiro badan kuwaas oo ay ka dhalan karaan xanuuno balse aan jirin cid alla ay hadda wax ka qabatay xildhibaanada golaha deegaanka qaarkood ayaa sheegay in hawlihii dawladda hoose aysan shaqeyn muddo dheer isbeddelna ay u baahan tahay degmadu mar ay booqasho ku tageen meelaha ay biyuhu fadhiisteen amiga waxa yeelay aragtaa waa qashin maayadkida ma ee degmada ee loo doortay inuu cidda magaalada ka shaqeeyo ee wada aragtaan inuu hawl galay fiisadiisi wada arkaysan iyagoo xidhan magaaladii meel kasta biyaha fadhiyo waa dac wadooyinka magaaladu goostay daacuninu ka dilaaca halis bay ku jirtaa waxaan leeyahay haddeer iyo codgaaban dawladda waxay ugu diraynaa si degdeg ah Laascaanood loo soo gaaro wax looga qabto kooran baan dooraynaa inaan isbedel kaga muujino degmadan fadhiga hana loo qabto waliba oo dhabna la soo diro nala arko ogaada mida wadooyinka uu hadda gooyay tuqa Laascaanood waxay suuqan tuulqada wuxuu lahaa wadada way go'antahay dhagax baa ku baahan waxaasna nasiib darro yana ahayd xilligii uu ahaa gudoomiyaha wax dhulka inuu soo gacantiisa kaga guray dhagax dowladda magaalada Laascaanood ayaa eedda dusha u saaray maayirka degmada Laascaanood ay sheegeen inuu ka gaabiyay hawlihii loo egmaday waxayna sheegeen in gabi ahaanba uu hakad galay isku socodkii dadka iyo gaadiidkaba ayna xidhbeen qaar kamid ah wadooyinka halbowlaha ee magaalada Laascaanood aanu ka cabanaynaa maayirka magaalada Laascaanood anigu magaciisa ninka ma aqaani waad aragtaan dhibaatada dadka haysata biyihii wadooyinkii baqaradii ummadda horteedii bay saa u waran yihiin isagina lacag buu iska urursanaya in dhaweedna meeradu waxay ka cabanayeen cashuur lagu kordhiyay wax loogu qabtayna ma jirto meel walba dacdi baa waran marka waxaan dawladda Siinayo u sheegaynaa inay ninka gobolka ka soo gaadho haddii kale waa in cali khalif ka soo gaadha in laga dhigo taasoo kale haddii kale dhulku waa qaribay magaalada innaka iskale reer kastoo ag taaganiba hadduu ku daro $5 waxaa weeye meeshu wayna ka samaysmaysaa war hawsha aan wax ka qaban waan iska hagaajin aala wasaa saasaa dadweyne kule horta dawladda waxaan ku cambaaraynayaa maadaama doortan ardaynaanay maalin walba waxaan ka qaadaa canshuurta wax walba aan ka qaadaa sina wadooyinka aan marno dhiiqalaan baan la marnaa iyo wadooyinkii xun iyo baabuurtii wax walba waxaana ka dhalan karo halka xanuuno badan baa ka dhalan karo saadiraadid maanta hadii gurigeyga hal canshuur lagu yeesho albaabka nagala baxaya dawladdiina waa taasoo xun qoomeyso wadooyinkaas la hagaajinay saadiraadid loo meel isma galaan ameen cashuurtiina la ka daayama wadooyinka la hagaajin waxaan ka codsanayaa maamulka gobolka Sool heer degmo iyo heer gobol bulshada gobolka Sool waxay ka codsanaysaa nidaam xumada biyaha isdhex yaala in maamulka gobolka Sool heer gobol iyo heer degmo wax ka qabto waxaan aad iyo aad ugu xunahay inta anigu waraysi gobolka Sool ka tirsan xaafadana arkaysaa xaafadana waxa ka tirsan xaafadda hooyada waxaan ma yarka codsanaa inuu xaafadda si degdeg ah u eego waliba il gaar ah ka cashuurahan iyo uu naga qaado cashuur si waxaan u baqaar adagta cashuurta uu siiya isla qashika iyo biyaha waran aad arkaysaa waxba kama qabto marka ma yarka message-ka uu gudbinayo wuxuu yahay عثمان سليمان يرو هوسو حافظا waxaan anagu hadaan nahay bulshaweynta reer Sool waxaan leenahay maamulka Siinayo inay naga hagaajiyaan wadooyinka ay sameeyeen iyo maayirka Mukhtaar Cabdi Jaamac warbaahinta SBC magaalada Laascaanood